garsoorayaashaada u sheeg. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركو روحان آدي أو سلامة يا مرت شرفت اسكوكو تمدي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحان آدي أدول كنوجو أنا آدي أدول كنوجو سلامة يا ومرت شرفت على كن اسكوكو تمدي. إن هابانا استاديوم وحكرنا آدي سلامة يا قرصورياشة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا نوانكو سلام ولا المركو ورا. بانكو سلام ولا. waxaan si gaar ah kaaga mahadcelinayaa sida quruxda badan ee u labisan tahay ee adiga oo moogtahay aad ugu dhiiran aad stage-ka u soo istaagtay marka hore taasiga qaado. Thanks. marka labaad maxaad ku soo tartamaysaa maxaad tartan ahaantaada u soo diyaarisay caawa? walaal waxaan ku tartamayaa ama aan doonayaa inaan bulshada deegaanka u soo bandhigo waa wariye ama saxaafadda. Okay, saxaafadnimad miyaa? wariyeena ku tartamaan doonay muddo inta lag baad ku naaloonaysaa inaad wariyenimo aad noqoto ama rajo inta lag baad ka qabtaa caawa muxuu ahaayay tartankaaga? walaal weligay allahay inta ciyaalnimadeedii xitaa intaan ardayda iskuulka iskugu yeedho ayaan interviewga ka qaadi jiray ilaa haatan aad baan u jecelahay. marka hadane waxay ka dhigan tahay taas dadaalkaaga maadaama ilaa inta dadaal soo wada inaad caawa haboonba ka badin karto insha Allah inaan ka badiyo doonay wariyayga deegaanka Soomaalida laakiin inaan iyada ku daba jiraan jecelahay. ma sha Allah wad mahadsantahay xabiibti ku soo dhawow. Okay, thanks Suno. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوداشيدا قاياها iyo qadarinta naga mudo meel kasto daafaha dunida aad kaga sugantihiin ba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Imikii haatan waxaan jeclahay inaan barnaamijkayga aan sii wato. anigoo ku bilaabaya daawadayaasheeda qaayaha iyo qadarinta naga mudan oo halkani waa muqbahiyaha caanka iyo STV xaruntiisa aan ku leenahay magaalada Jigjiga. warqadan haatan gacantayda ku hayaa waxay ku bilaabanaysaa ama sida loo soo qoray aad bay qurux badan tahay. waxaana lagu bilaabayaa hambalyo aroos wanaagsane. waxaan halkan taaniyada aroos ka dirayaa dadka kale ay yiraahdeen hooyo Siraad Maxamed Duleeye saygeeda iyo caruurteeda Hodan Cabdiraxmaan Caydiin Cabdi Fadaax Ibrahim Cabdi إبراهيم محمد عبد الرحمن عيدين واري عبد الرحمن عيدين نجيب عبد الرحمن عيدين يا دمان مع عبد الرحمن عيدين بقى إلهان محمود هذا ورد محمود هذا هو يا حمد الشيخ علي سيد هذا يا عرورت هذا نعيمة محمود هذا فضحية أنا حمدي سيد هذا يا عرورت هذا أدبد ما سنتي هذا مدنتي ولا هذا runtii aad iyo aad baad u mahadsan tahay sida ballaaran ee aad isku dayday inaad ka mid noqoto suxufiyiinta deegaanka Soomaalida Ethiopia haddii aan nahay garsoorayaasha tartankan qaaliga ah ee Kali Got Talent runtii si fiican ayaad u soo bandhigtay laakiin marka ugu horeysa waxa fiicnayd marka aad ku bilaabaysay waxaad ku bilowday oo tiri runtii saxaafadda maadaama in badan ku soo dhex jirnay ama aan muddo badan inta wakaaladu asaasantahay soo joogno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh idilahantiin baa khiyaartayda qiimaha iyo qadarinta mudan meel walba oo hawada ka daawanaysaan halkani waa telefishinka caalamiga ee STV kuna soo dhawaada hadii aad warka uga barteen xilligan oo kale haddaba marka waxa loo baahnaa marka inta sheegtay in aad toos u gasho qodobada wararka cidda warka waxaad noo kala saar weeday salaamihii iyo wararkii waxaana macnaha halkaas aad ku soo bandhigtay in aad war soo jeedinayso ama aad war akhriiso laakiin waxa toos u gashay salaan aad u fara badan qofka wariyuhuna marka uu media-ga fadhiyo ama uu soo bandhigayo wax ama uu war sheegayo waa inuu noqdo qof ku hadla afka shacabka una ahayn qof macnaha personal dadka halka uga salaama marka pointigan ku haya waxa weeyaan in ugu horeyntii soo galitaankaaga aad soo gashay aad buu u fiicnid laakiin maxaa dhacday markaad warkii bilaabi lahayd halkii aad ku oran lahayd mar kale ismaqal aragti wanaagsan daawadayaal iminkana aan u gudubno qodobada wararka ugu door karoon macnaha warka madaxdiisa inaad sheegto warka wuxuu ka koobnaa kadibna faahfaahintooda asaa ku gasho runtii aad baad u fiicneed baan oran karaa sida fiican aad u soo bandhigtay
bal waxaan kugu gudbinayaa liina iyadana mahadsanid marka hore hodan marka hore waan kuu mahadnaqayaa mar labaad kalsoonidaada aad masraxa ku soo istaagtay macnihii gabdho badan oo hadda deegaanka ayna ku nool oo cabsanaya ama ku jirto muxuu ahaayey dareen cabsi ayada hadda dhiirigelin badan u muujisay inay halkaas soo istaagaan ee masraxa ay ku soo bandhigaan muxuu ahaayey talentigooda ani ahaan waxaan sheegayaa markaad warka soo bandhigaysay suu sheegay iyaas waa runtii warku macnihii markuu ruuxu magaciisa sheego salaanta muxuu ahaayey TV-ga uu ka hadlayo muxuu stuudiyuhu fadhiyo magaciisa intaa kadib waa marka waxaa ku xigta sidaan aalaa uga bartay markay wariyaashu warramayaan waa warka madaxdiisii wararka muxuu ahaayey intii ugu doorka rooneed kadibna warkii oo faahfaahsan saasaa warka marka hore loo kala saaraa talabaad waxaan kuu soo dhigayaa markay fadhiyaan wariyaashu stuudiyaha markay fadhiyaan qofka waxaa wariyaha inuu noqdo qof boolight ah maadaama uu intaasoo shacab weyne oo adduweynaha caalamka ah laga daawanayo qofku markuu soo fadhiisto stuudiyaha waa inuu noqdo qof si straight ah u fadhiya oo hadda markaad adigu aad warka akhriyayso oo kale marra sidan baad lahayd marra sidan kolba dhan baad si wareejinaysaa marka iswarwareejiskaas iyo kolba dhinacu jeedsigaas warkana muxuu ahaay iska sixi doonaa insha Allah taa laftigeeda hadda ahaan waa taasaan kuu soo dhigayaa insha Allah waxaan kaa qabee kale muxuu ahaay raygana waa dhiiban doonaa marka ugu horeysa hodanay wad mahadsantahay run ahaantii wariyinimada waxaa jirta qaabeeshin iyo nidaam bay leedahay hadda war baad noo akhriyayso weriyaad matalaysay ee ma aadan suuq soconinoo maadan xarragoonin soo maaha haddii aan hadda damco inaan weriye noqdo halkan waxaad u soo istaagtay inaad ku tartanto weriyinimo soo maaha kaymo haddii aan damco hadda inaan war akhriyo maxaan odhanayaa anugu qarax ka dhacay dalkan alla tariya ayaa waxaa loogu togay madax taqsiinsan iyo gacan laabtaada haysataa dirgax su'aal ma weydiin karaa waad weydiin kartaa walaal anigu war ma soo daynin laakiin barnaamijka muusiga iyo salaamaan soo daynay waad mahadsan tahay hadda anu dhankayga waxaan leeyahay wariyinimada maya allah bismillaahi raxmaan raxiim aad baa la isugu buuqsan yahay kolley codadka dadka muxuu ahaa iyo taageerayaashaada iyaga laftigooda marka la eego dadka in codkooda la qaato waa mid iyadoo meesha ku jirta laakiin ani ahaan hodan waxaan ku leeyahay aad baad u fiican tahay walaal macaan waxyaabaha aan comment ahaan kugu siinayna insha Allah waad iska soo saxaya insha Allah marka hadda ahaan waxaan ku leeyahay aniga wareega waad u gudbi kartaa mahadsanid walaal macaan aad baad u mahadsantahay hodan aad baad u mahadsan tahay waxaan codka siinaynaa waa shacab weynaha sharafta leh ee ka soo qayb galay tartankan oo dhammaantood gacanta ku haysta kaadhadh ay ku muujinayaan codka okay gacana la taago dejiya hodan waxaan odhan karnaa natiijadii ugu dambaysay markaan soo saarnay ay dadku u soo dhigeen in wareeggan ay gudubtay laakiin wareegga dambe ay soo dadaasho maadaamaad hadda haysato huruud iyo green marka wareegga dambe waa inaad soo dadaashaa ood sidan ka soo beddeshaa aad baad u mahadsan tahay